daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha mudan waa barnaamijkeenii ishcaa shaqa iyo qeybtiisii labaad oo caawa uu marti inoogu yahay saddex xalaqooyinkii hore ad u daawateen qeybihii hore fadiilatu sheikh saciid raagi xafidahullah ka mid a culamaa udiinka soomaaliyeed ee aada wada garanaysaan kuna dhaqan waddanka canada magaalada toronto sheekh saciid raagi mar labaad kusoo dhawow sheekh saciid jazaaka allahu khayr wiigii hore waxaynu ka hadalnay barnaamijka ishcaa shaqa arrimo runaantii aad iyo aad muhiim u ahaa laakiin haddaynu dib taariikhda islaamka sheekhana alfaadil ugu noqono nabiylaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam markii loo soo dhiibay waxyiga waxyaalii ugu horreysa uu ka bilaabay waxay ahayd dadkii dhulkaa jooga carbeed iyo kuwii kaleetaba yuhuudiya ka mid ahaayeen in marka hore diinta la gaarsiiyo dad waxay ahayd aada u adag dad waxay ahayd dulmi badan dad waxay ahayd isdila nebigu saxaabada noocaas birta iska asli jiray sidii uu u walaaleeyey runaanti cibro badan baa noogu sugan marka arrintaas bal insha allah in yar nooga tataaba adigoo aad iyo aad u mahadsan jazaaka allahu khayr aljaza sheekhana alfaadil aad baad umahadsantahay walaalo abu hureyre waa ilaahay subxaana watacaala kaa abaalmariyo kulluna calaa sagra nin walba meel buu diinta ka haya oo diinta ka masha allah tabaaraka allah uga gargaaraa ilaahayna subxaana watacaala inaga dhigo kuwa diintiisa uu isu taagay u gargaara wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin yani ilaahay subxaana watacaala waxaad moodaa inuu risaaladii nabi maxamed ku koobayo raxmad waayo risaaladaa lasoo faray nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku salaysan tahay naxariis oo si laisu naxariiso oo laisu jeclaado oo ka daciifka looga nafo ka baahan loo caawiyo taa caawadu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku abuuray oo wuxuu ku tarbiyadeeyey saxaabadii raxmadda ilaahay subxaanahu watacaala usoo diray raxmadduna markay wadnaha ku dhacdo ay u dhaadhacdo ay wadnaha degto ay dhex fadhiisato qofkii arkaa wuu jilcaya qofkii qalqallabsana wuu soo laabanaya qofkii adkayn jiray wuu dhibcaya marka lagu yidhaahdo ilaahay ka cabso laga yaaba ninkii aan weligii ooyi jiray dadka gawrici jiray inuu raxmadda iyo naxariista wadnihiisa uu islaan ku geliyay inuu ilmo rabax idhaahdo oo ilma ay ka soo daadato nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam dadka saxaabada raxmad ayuu tusay oo kula dhaqmay oo asagii bay ka arkeen asagiyo raxmad darteed ilmaynaya oo ooyaya oo tusaya inay waxay tahay wax ilaahay dadka ku gaaray waad garanaysaa markuu ibraahim bin maxamed nabiga sala allahu calayhi wasalam ilmihiisa markii uu dhimanayo nafti kasii baxaysay oo asagoo ilmihiisii gunaanadaya oo dul taagan ilmo yaro meesha joogo aabbo aabihiinatu taagan yahay oo nebi maxamed leeyahay nebigii raxmadda oo ilmihiisii inta sidaas dul taagay uu arkay ilmihiisii oo dhimanayo nafti kasii baxaysoo dhintay markaasuu ilmeeyey cabdiraxmaan bin cawf radia allahu canhu ayaa yaabay nebigii sala allahu calayhi wasalam lasoo diray ee ummadda loo soo diray inuu qaa'id noqdo ee cadow la dagaalamo ee dadka uu iska celiye ahayd ayaa ilmeynaya qaala maa hada ya rasuula allah nebi maxamedow waxaan waa maxay ilmadan waa maxay nebigu markaa wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam ya bni cawf waa raxmad ilaahay subxaanahu watacaala wadnahayaga wadnaheena ku abuuray yani aabbo ilmihiisa raxmad buu hayaa ninka marka aabahay caadiga ee dee ilmihiisa raxmadda u hayo ka waran nabi maxamed yahay sala allahu calayhi wasalam mas'alada marka way kasii xag jirtaa xadiiskana waxaa laga soo wariyay inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam majlis uu fadhiyey uu asxaabtii isagoo la fadhiya oo rag acraab oo ilmihiga jooga ay fadhiyaan inay alxasan walxusein ay soo carareen uu nebigu markaa ku dhunkaday markaasuu yidhi oo carruurtina meel dhunkataan markaasuu lahay waan dhunkanaa asna wallahi anigu intaasaan leeyahay weli mid kama dhunkanin marka isagoo maxaa ku sameeya hadduu ilaahay raxmadda wadnahaga ka saaray marka raggii hawlahda nolosha ku aasi jiray ee aan isu naxariisan jirin nebigii bay ka barteen oo ku arkeen naxariis taa aaweedu nebigi ay saxaabada markaa ta'kiir ay ku samayso oo iyagii adadaygoodii iyo alghulfa waljulfa alcaraabta lagu yaqaanay
ay kasoo daadegay arkeen inay yihiin dad bini aadana oo naxariisan kara oo loo naxariisan karo waa maqasheen xadiis soo aroray man inna النبي صلى الله عليه وسلم وضدك آدي يريد رحمة ينحرس وحتى قار أي لو رنجل يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وضدك لقوا جهون نحرس عيركوا جهون سيدي يبقى نحرس حتى واحد وحنقول شيء ده النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله صلى الصوت والضوء أي أمة الله صوتري أنت وبارسين كأنه وبارسين ضدك إنه كفي إنك نتيبة إنك ما تعتير نقول سمايسي والله أعلم. جزاك الله خير جزاء شيخنا الفاضل الشيخ سعيد لقى الله سبحانه وتعالى حق حفظيه. شيخ سعيد سؤال شكرا كويديني وحياتهاي لغان كيرنا ومد الصوماليات وحنو هذا برنامج كانوا كادلتا إيش عاشقة لكن سؤال إسويدين تلو بدنا أنو أرقناه حكم إذا قفكو هدو يا قف يلدين أما السنة كم وقتا أمو يا قف دين لو تيرنيو عاشق يسوح لهذا السماء دوا وحبضنا أنا سوق على محا عاشق اللوجه هالليا ورودادي محا كل عاي ورشعلك محا اللوجه هالليا أرمها صدق واحد قصة هذا الشيء حلقة دي هراء النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو سد تشيبه وحيالي هو من سنة أحيد إنه مدرس عليه سيو إن أدون قدر رحمة يوناك يتشعل وها مركا قفك وذاتك محد أنت اللي وجودي دي محا نعم أرنتاس إن كورتاجن. تفضل شيخنا الفاضل أدعو معك بارك الله فيك جزاك الله خير شيخ سعيد. خلينا نقول 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 رقم كنا ينشأ نكلمي وحنا نهاي ضد جاهلية قريش كله يأعرف وإن هذا جيد قريش اللي هو يقاني أي سمارد اللي هو يقاني وجل شرم ميلان وعلم الدين وكم قية هاي إن بدكو سوكري الأبيك يو إن رحمة الله أيين النحي مكسومالي أصل كذا تدل لون نقطة تنفسي قرانينا إن هذي ما كان قرانيا دين كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاني يا رحمة الله ده يجعل كان يمحبة ونبي إنه تصي هذي قرانيا وفهمتي وكل رقم معي لكن واحد سكر راعي جاهل نمو يه إن أبي جالسين النماء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة يه إن دمر كلون حريص أو دمر كلا جعلاء أو دمر كلما ولي أو دمر كلا صفر أنت بالنبي إنه جدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرتي عمرو بن العاص وكريم من أحب الناس إليه يا رسول الله النبي محمد يقول جاش أصلاً خجلين أو إسمرمرين أو كبرين عيجين شو دي بعرف أنا كل فتاي عايشة تقول جهله وكبرنا يحرك كيجي وان جهله إن وكبرنا نقول سري إن جهل بنا قد حيا النبي صلى الله عليه وسلم إنها قاركود حتى يدخل لو رئيسانين أيو رجلي وكا خديجة لسوق قاضو رزقت بحبها جعل كيدي أيو لا رزق إيسي يعني واحد مدائين وليه هيبا يعني هو هدية من الله ويعني هدية إلى هاي جعل كخديجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني دمر كفقه رجلي ما كلامنا حديثنا أيوه استوصل بالنساء خيرا ودمر إن خير يعني إذا تقدر ترمي حق دمر ووجد شريع صلاة خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي رق وحقول في عمودي أنت غير كله فيها كلمة الأهل لا وحنا وجد شيء وأنا نقول كرتان طن يعرو يرير حاس كلينا ونقول كرتان حادثة الإفك وكان النبي صلى الله عليه وسلم انت من بالبقري وغدا أسوأ انت عاش اللماغي وعبد الله بن أبي بن السلول وعاش كل يقوي زيني فتي يقانون صحابنا أي شيء كذي عرر كل فتان وكان النبي صلى الله عليه وسلم انت من بالبقري قال بدي عذرني في رجل يؤذيني بأهلي وأن الخير كيجي أنا قلت لا يقوانا وكان النبي مركا رحمة إنه النبي صلى الله عليه وسلم إن تصيين كل قنوي معك أبيك وحا إنه الصبابة أصل جينيو جيل ريني لكنني إيو علم الآن وحن مر أنا نيلك هالليا أيام النبي صلى الله عليه وسلم سنتم الكيسة
إن أبو كان شري أو صحيح البخاري والسوري إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام كسب حي عائشة أبو كان شري ومحراب قد شري شكل واصي وضيع إن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يسلم حاس كيسو مهو ده شيء سنشري واسكسور دوان شري النبي دوان يدوم قصي شكل واصي وضيع إن النبي صلى الله عليه وسلم كيسو مكتب شري ونبرة تمشي شكل ما درس سيارة ديرية وحنيري النبي صلى الله عليه وسلم كان ورك اللي جي ماتو دمر كيسة ميل بكودة ماليشين ومرك قبيسينية انت لما خوف قبيسينية مريها ما حد معي لما قفاك انت مريها بكتين هلكا وضع قري ووضع قبيسينية نرجو وضع قبيس حاد كيسة ولا قبيسين شري سلامة مرة رد الله هذا مرك واحد جري أنه هو بيتري ولا بدي حشات كذا كتير يعني واحد التمرك عيده إنه مركانو النبي كنت المؤمن إنه دمر قبل وحاسو قبل ولما يدي ونيل عيسو ذا تاجي إن النبي يبقى عن باريون يبكش يجب أن يدو عنه حاسنا هو جهنم وأيضا مركا وحينا بالصبابة جهنم دا علمي لعنتن عين القرنين حبينو قرنا محبة النبي النبي سيدو ضدك ودمر كيسا وجالا يسيدو أسور دوين جري يسيدو لكفتن جري يسيدو لفرق العيال جري يسيدو ولحد جري يحيطا كلمدها ونبي كورن جري رحمة يجعيل كعادي وكسو كاحيو حبين انتا قرنا وين كل رقم لحي دمر كينو قدودو جعيل كيو وحا يو رحمة تستسك يو وحا قليدو كما بيرنا وقبل السماء يوحى كورنا سوى حالة وسط الدار نكاد جعيل كهتصن وهتصن إلى جعشي والنعسيني والحوثي مركا إسلامتي بشبه وحكا وسط الدار مثلا إلى التيدي نكاد أسوشة الإنين جعيل هتصن تصن الجوار أدك تحي وحيث أيين أدوك إن حبيبتي أمواكو جعلي وأنا قلت لك أولادا يا تطوتي سوى دماغ النساء ونلبك حنونة مركا ومد بيننا حي هلكا تاجن تعرفنا واحد نغص الله جاهل لماذا